leeyihiin waxaynu ku bilaabi doonaa Sheekh Maxamed Sheekh Umar Dirir oo ciwaanka uu inagala hadlayaa uu yahay waa kuma Nabi Maxamed sifaadkii iyo muuqaalkii uu lahaa Nabi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam waa galab jimce salliga nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayaynu badinaynaa si wada jira ayaynu u soo dhaweynaynaa Sheekh Maxamed Sheekh Umar Dirir الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت كذب وحين أمهدنا قينا إلهي سبحانه وتعالى إن قدقي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أمديسي سواء جيبتي الراعبي الرميسي السيدة نقوه لنيسه وعلنت قيامهنا كوش النظى وهركعه الله ينقدقه انت أكذب وقت قصد الله الشيقي وكوبين يهي وحن يقرأ مهدنا قيا انت أنا دافين dhalinyarada soo abaabulay kulankan qiimaha badan runtii sheegaya in daayartu muslimiintu wixii lala doonayay in badan oo kamid aan lala helin waxa la doonayay in diintoodii rasuulkooda laga dhax galo laakiin xiisahan ay hayaan iyo kalgacalkan iyo jacaylkan idinkuna waa ku mahadsantihiin haddii aad tihiin dhalinyarada soo abaabulay iyo qolada duubaysa gudbinaysa qolada fadhida dhagaysanaysa iyo qolada adduunka meel kastaba ka dhagaysanaya idinkuna waa mahadsantihiin sida fiican u soo camirteen iyo sida khayrka u danaynaysaan nabiguna wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam man dalla ala khayrin falahu mithlu ajri fa'ili qofka walaalkii khayr tusiya ama qofka kale khayr tusiya wuxuu leeyahay qofkaasi ajriga uu helay in leeg kelmadan kooban waxaan soo yara gudbin doonaa marka hore hordhac aan kaga hadli doono cadaawadda gaalada iyo waxa u sababa marka labaadna tilmaamaha nabigeena wax ka qaadan marka saddexaadna day suura gasho erayo kooban oo dardaarana insha Allah ugu horeyn waxa isweydiin la maxaa sababay caydan iyada ah ee kolba la caayay lagu soo celcelinayo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyada mararka qaarkood shakhsiyaday arrintaasi ku sameynayaan qoraal oo saxaafadda ku qorayaan haddana ay maraysaba dawlada iyo madaxdooda aan soo dadajinay waxa taa u sababa siraaca iyo lagdanka ka dhaxeeya cidii xaqa u taagan oo hormuud ay yihiin rasuulada ilaahay iyo cidda uu horkacayo ibliis iyo shaytaan lagdankaasi wuxuu soo bilaabmay dagaalkaasi markii ilaahay uu abuuray subxaanahu wa tacaala nabi aadam oo aynu ogsoonahay ibliis weerarka uu ku qaaday iyo inuu diiday inuu sujuudo iyo inuu kibray iyo inuu xaasiday saddexdaba ilaahayna wuxuu bacdukum libacdin caduw walakum fi lardi mustaqarrun wamataacun ilaa xiin cadaawaddaasi inay jirayso oo ibliis iyo aadamahana ay ka dhex jirayso inta ibliis raacdayna ay colaadinayaan dadka wanaagsan ee saalixiinta ah ilaahay waa xuso quraanku ku cadeeyay xikmadda ama arrinta ka dambaysa waa imtixaan ilaahay uu imtixaanayo dadka wanaagsan iyo dadka xubin ay kala baxaan ilaahay baa wuxuu wajacalna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiruun qaarkiinba qaarka kalaanu ku imtixaanay maydin sabri bimacnaa ku sabra marka sabirkeena la eegayaa iyo mabda aynu xambaarsannahay inta uu inaga dhab yahay
hadduu ilaahay doonayo subxaanahu wa tacaala dadkaa nebigiisa caayaya ama dagaalka muslimiinta iyo diintooda ku haya mar qura ayuu afgembiyi lahaa ama meesha ka saari lahaa laakiin ilaahay baa wuxu uhi dalika walow yashaau allahu lantasara minhum walaakin liyabluwa bacdakum bibacd hadduu doonayo ilaahay wuu halaagi lahaa gaalada iyo waxaa xumaanta samaynaya wuuse isku keen imtixaanaya waxaa la eegayaa doorka iyo kaalinta iyo difaac iyo dagaalka ay qaataan awliyada ilaahay arrinkaasi wuu sii soconayaa waxa uu socon doonaa ilaa inta uu la dagaalamayo nebiyullaahi ciisa calayhi salaam kii cawarnaa ee dajaal alacwar la odhanayay arrintan cadaawaddan iyada ah ee soo jireenka ah aad waxa uga warramaya oo ilaahay uu ku soo bandhigayaa qur-aanka kariimka ah qisooyinka nebiyaduba waxay ka warramayaan waa cadaawadda ay hayaan gaalada iyo ibliiska isxambaarka ah ilaahay baa wuxuu ihi kadalika maa ata aladiina min qablihim min rasuulin ilaa qaaluu saaxirun aw majnuun mar kasta oo rasuul yimaado waa la caayay rasuulkaasoo waxaa lagu sheegayay sixir leh ama nin waalan waa laba tilmaamood oo la isku caayo oo qofka bani aadamkaa la doonayo misdaaqiyadiisa iyo shakhsiyadiisa in lagu baabi'iyo si aan waxba looga rumaysanin mar kale ilaahay fi suurati furqaan wuxuu ku yidhi wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan min almujrimiin wakafaa birabbika haadiyan wanasiira nebi kastaba waxaan u sameeyey baa ilaahay uhi u diyaar ahaa cadow dembiilayaasha ka mid ah laakiin ilaahay baa u hiilinaya arrintu intaa way sii dhaafi jirtay oo siduu qur-aanka kariimkaa ilaahay nagu barayo gaaladu intay cayda dhaafaan ayay nebiyada ilaahay gacanta saari jireen siduu ilaahayba kaga warramay qur-aanka kariimkaa nimankii reer banu israa'iil iyo dhaqamadoodii foosha xumaa kulamaa jaa'ahum rasuulun bima laa tahwaa anfusuhum fariiqan kadabuu wa fariiqan yaqtuluun mar kastuu rasuulu yimaado wuu ula yimaado diin aanay jeclayn nebiyadaa qaybna way laynayeen qaybna way beeninayeen arrintani waxaa si cajiiba u soo bandhigay ama u ogaa cid kastoo khibrad u leh waxyiga ka sakow waxaynu ogsoonnahay markuu ilaahay soo diray nebiga calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed casharkii u horreeyey waxaa siiyey malakul jibriil isagoo yaro cabsanaya markuu yimi xaaskiisii khadiija bintu khuwayli iyaduna cashar dejina ayay siisay oo cabsidii nebiga ay kaga beenayso casharkii saddexaadna waxaa siiyey ninkii la odhan jiray waraqatu bnu nawfal nin xaaska nebiga ee khadiijo ay xigto ahaayeen buu ahaa sida axaadiidta ku aragteen ninkaasi diintii kirista ku haystay wuu ka dhegaystay nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiga markii uu dhegaystay waxa uu sheegay ka u yimi inuu yahay naamuus malaggii u iman jiray nebiyada waxaan uga socdaa waraysigii kadib wuxuu waraqa u sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam in dagaal ku bilaabmi doono laytanii fiiha jadac wakhtiga aada rasuul noqonayso hadda soo baxday laakiin aada hawlgelayso nin dhallinyaro maa noqdo xoog leh laytanii akuunu fiiha xayan wakhtigaa nin nool maa noqdo rasuulku sala allahu calayhi wasalam su-aal buu ninkii weydiiye wuxuu yihi awaa mukhrijiyahum oo miyay maan jooga buu yihi markaa ninkaasi wakhtiga qoladaadu ay ku eryi doonaan wakhtiga qoladaadu ku eryi doonaan maan joogo nebigu wuxuu yidhi awaa mukhrijiyahum wuu yaabay rasuulku oo miyay eryayaan waxaan uga socdaa marka wuxuu yidhi lam yaati rajulun bimidli maa ji'ta bihi ilaa cuudi qof kasta oo adduunka la yimaada shaygaa aad la timida xaqa ah waa la colaadiyaa marka qodobkeenna labaad arrintaasi ama qisadaasi waxay ka jawaabtay cadaawadda sababteeda oo ah qof kasta oo diin la yimaada diinta islaamka oo ay ka dhabtaho ka tegi waaya colaaddaasi way ku soconaysaa aayado badan baana ilaahay uu ku caddeeyey qad naclamu innahu la yaxzunuka aladii yaquuluun fainahum laa yukadibuunak walaakina aldaalimiina biaayaati illaahi yajxaduun nebi maxamedow waan ogahay buu ilahay inay murugo kugu hayaan iyo dhib hadalkooda iyo dagaalkooda
laakiin waxaan kuu sheegayaa gaaladu adiga kuma beeninayaan shakhsiyadaada aayadaha ilaahay aad la timid ayay diidayaan marka macnaheedu waxa weeye sababta siraaca iyo sababta cadaawada waa diinta aad la timid xaqaa daraaddeed waxay lahaayeen qoladii saalix loo diray taasoo kale ilaahay kaga warramay yaa saalixu qad kunta fiina marjuwan qabla haada saalixow rajaanu kaa qabnay intaanad la imanin diintan marse haddaad diintan la timid dagaal baa inoo dhexeeya waxa isweydiin leh miyaanay cudurdaar bay leeyihin ma jaahiliin baa maxay diinta u qaadan waayeen iyagoo garanaya inay xaq tahay diintaasi ayay iska diideen ilaahay baa caddeeya wuxuu uhi wajaxaduu biha wastayqanata anfusuhum dulman wa culuwa way garteen inay yaqiin tahay waanay fahmeen laakiin gardarre iyo kibir daraaddeed ayay xaqaa isaga diideen markaynu ku soo dhowaano si kale cadaawadda noocana ee u dhaxaysa dadka ilaahay rumaysa subxaanahu wa tacaala iyo dadka diinta xaqa ah ka soo hor jeeda ma dhammaanayso inta adduunku jiro tusaale kooban baan idin siinayaa ama basiida si wax loo fahmi karo maalan dalka cudur baa ka dhacay ama adduunkaba waxaynu furnay dhakhtar wanaagsan oo aynu doonayno dadka inaynu ku dawayno dhakhaatiir bilaash ku dawaysana waynu keennay iyo dawo fiican nin baa wuxuu inaga ag furay dhakhtar xun oo dadka joogaana aanay aqoon lahayn dawadiisuna ay tahay mid sunoo lagu bukoonayo weliba wuxuu ku darsaday dadka wuu ka iibinayaa weliba wuxuu ku darsaday kii iibsan waana wuu ku qasbayaa isagu markaa ma ogola dhakhtarkaa wanaagsana sida fiican wax loogu dawaynayo intuu caayi karo wuu caayaya intuu la dagaalamayo wuu la dagaalamaya weerar buu ku qaadaya xaggiisa ka joogsan mayso colaaddaa iyo dagaalkaas innaguna sidoo kale eegan kari mayno qofkaa dadka sunaynaya ee halaagaya ee weliba ku qasbaya digtoorkaa faalsada ah iyo dawadiisaa suntaa ma eegan karayno marka dagaalku xaggiisa ka joogsan maayo oo badeecaddiisa xun buu doonayaa dadka inuu ku qasbo innagana xaggeenna ka joogsan maayo kaa inaynu dadka ka qabannaa waa muhiim marka haddii la yidhaahdo waa la heshiiyey oo cadaawaddii meesha way ka baxday labadii qolaa laga adkaaday weyn weliba dadka muslimiintaabaa laga xoog batay taa waxaynu uga jeednaa dawadii baynu inagu sidnaayoo diintii islaamka ah isaguna suntaasuu xambaarsan yahay gaalnimada ah intaa marka aan soo dhaafo waxaan u soo gudbi lahaa qadiyad dadka qaarkood ay ku yaro kadsoomaan oo ah arrinta xorriyadda in xorriyadii jirto oo xorriyad ay u dhaqdhaqaaqayaan xorriyadda noocaasa marka laga hadlayo laba galaan baa lagu miisaa galaanna innagaa la inoogu miisaa galaanna iyagaa loogu miisaa ama ay ku miistaan innagu waxaynu leeyahay muqadasaad iyo waxyaabo lama taabtaana waa diinteenna wanaagsan dadkeenna wanaagsan iyo dalkeenna wanaagsan diinteenna islaamka iyo ilaahay soo dejiye waa lama taabtaan agteenna dadka wanaagsanina waa awliyada ilaahay ee rasuulladu ay horkacayaan dalka wanaagsanina waa goobaha cibaadada intaasi agteenna waa lama taabtaan waana intay sheeganayaan inay xor u yihiin inay wax ka sheegaan iyaguna waxay leeyihiin muqadasaad bay leeyihiin lama taabtaana haddii ay kaa qarinayaanna ama ay kaa qarsoon tahayna inaad ogaato ay tahay muqadasaadka agtooda lama taabtaankii waxa weeye waa diinta xun iyo dadka xun iyo dalka xun diinta xun waa calmaaniyadda alcalmaaniya waa dhagaysanaysaan maalintii dhoweyd madaxweynaha faransiisku mucallinkii la dilay markii uu la hadlayay ee macallimiintana hadalka u jeedinayay xorriyaddii waanu sii wadi kanaanu yeeli calmaaniyaddana waanu ilaalin doonaa buuli calmaaniya waa dadka in laga kaxeeyo diinta
marka diin la'aantaas muqaddas bay agtooda ka tahay waxa labaadoo agtooda lama taabtaana goobaha xunxun sida meelaha khamriga lagu cabo iyo meelaha lagu sinaysto iyo meelaha ummadda la isugu keenay khamriga lagu khamaaro meelaha xorriyadda loo yeelo lama taabtaankaa wey dadka xumi agtooda waa lama taabtaan bal iminka markaad adduunyada marayso qowmuluudka nimanka la idhaahdo ama luudiyiinta ee bani aadamka xagga dambe ka mara cidi kama hadli karto yuhuudda iyo arrimahooda cidi kama hadli karto dadka dhibka badan adduunka iyo kuwa akhlaaqda xun agtooda waa lama taabtaan xorriyad looba lahaa marka ha ku kadsoomin marka laga hadlayo waxa xorriyadda la idhaahdo ilaahayna wuxuu uhi qul laa yastawi alkhabiisu waatayib walow acjabaka kahratu alkhabiis arrinta afraadeen ka hadli lahaa baraarujin lahaa waxa weeye cayday nabiga caayayaan calayhi salaatu wasalaam ama sawirada xunxun ay sawirayaan iyo dacaayadooda miyay wax ku yeeli karaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam maya waxba kuma yeeli karaan nebi maxamed wax ay ku yeeli karaan male nin ilaahay darajeeyey ka dabagala isagaa daalaya ilaahay baa darajo siiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam qur'aankana ilaahay baa kaga jawaabay wuxuu uhi innaa kafaynaaka almustahzi'iin annagaa kaaga filaanay kuwa kugu dheeldheelaya horena ilaahay wuu uga filaaday iminkana wuu kaga filaanayaa inna shaani'aka huwa alabtar ka kuu cadhaysani isagaa cidhibtiisu goy doontaa goblami doona dhacdal buu ilaahay dusha uga tuuray ina aladiina yu'duuna allaha warasuulahu lacanahum allahu fi dunya waalaakhira waacadda lahum cadaaban muhiina kuwa ilaahay iyo rasuulka dhibaya ilaahay baa adduunyada iyo aakhiraba nacdalay cadaab duleeyana wuu u diyaariyey waxaa taariikhda ku xusan dadka muslimiintu markay la dagaalamayaan gaalada wakhtiyadii jihaadku ognaa ee u socday waxaa dhacaysay markay qalcad gaadh ka qabtaan gaaladu ku jiraan ee ay cidhiidhi galaan nebigay caayi jireen calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada ay jabi jireenee calaamadda lagu garan jiray inay jabayaan gaaladu waa markay nebiga caayaan mar haddii meeshaa iyagoo ku xidhan oo dagaal ku jira ay nebiga caayaan oy qur-aanka caayaan oy ilaahay caayaan markaasaa lagu bushaaraysan jiray oo la odhan jiray haddaa ilaahay inoo jabinaya iminkana waxaynu ku bushaaraysanaynaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala jawaab deg dega siin doono intaa markaan ka imaado kollay cadaawaddaasi ha jirto haddana dadka gaalada ah waxaa jira qaybo la yidhaahdo almunsifiin oo markhaatiga ay nebiga u markhaati furayaan calayhi salaatu wasalaam ka run sheega iyagoo aan raacinba iyagoo nebiga rumaynin oo raacin ayay ka run sheegaan xaqiiqadiisa nebiga calayhi salaatu wasalaam laba tusaale aynu soo qaadan mid wuxuu ah wakhtigii nebiga ninkii hiraqle la odhan jiray ee ka madaxda ahaa reer yurub nebigu waraaq buu u diray calayhi salaatu wasalaam uu ugu yeedhayo diinta islaamka ninkii wuu hadlo wuxuu yihi war maxamed nin la ydhaaba waraaqii soo diree cid wax ka taqaana ma jirtaa abi sufyaan iyo qolo la socoto safar ahayd ayaa la soo helay waa loo keenay qisada waxaa ku aragteen saxiixa oo waa xadiid la wada yaqaana waxaan uga jeedaa 10 su'aalood buu weydiiyey 10kii markuu dhammeeyey baa wuxuu yidhi sidaa aad sheegtay haddii ay run tahay halkaa aan taaganahay ayuu ka talin doonaa halkaa aan taaganahay buu ka talin doonaa waxaa dhacday qasaawisadii iyo raggii madaxdii diinta iyo ciddii xukunka kula jirtay waa kii u yeedhay halkaasaa idinku dhow buhi horumar iyo hanuune ma idin raaci way diideen markii ay diideenna wuu istaad raaciyeoo waa kii yidhi khalaas waxaan tijaabinaynaa diinta ku adag tihiin iyo in kale dee waana idinku darmay wuu qiray xaqii laakinahu matabac muu raacin ninka labaad waa ninka la yidhaahdo casrigan michael hart nin yahuudiya weeye waa nin maraykana waa nin masiixi ah
qaybta mustashriqiinta la yidhaahna weeye ee turaafka islaamiga ee diinta wax ka sheega ninkaa isaga ahi 28 sannadood buu buug qorayay marar badanna ee culimada wax ka soo qaadanaya waa maqasheen markii dambe waa kii ladha ku soo bandhigay markii uu qoray kitaabkiisii caanka ahaa ee loo yaqaanay alkhaaliduuna almia boqolka nina taariikhdoodu waarayso wuxuu ugu soo horraysiiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu nebiga ka bilaabay dhegaystayaashii sidan oo kale u dhegaysanayay way fooriyeen way qayliyeen iyagoo doonaya inuu ka joojiyo halkaa uu ka bilaabay umuu joojinin waxaan uga socdaa dhowr arrimood buu xusay oo uu kaga markhaati kacaya nebiga weynaantiisa cadamadiisa iyo runtiisa rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaan ku doortay buuhi ninkaas dadkaa taariikhda galay oo dee qaar xumaan caan ku ahaa iyo qaar khayr caan ku ahaa labadaba way leeyihin waxaan maxamed ugu horraysiiyey buuhi dhowr arrimood 5 arrimood ta u horraysa weeyaana wuxuu ka soo dhex baxay ummad aan xadaarad lahayn wax kaydahoo uu sii haystay ma jirin dadkan kale ee iyaga aan taariikhda soo geliyey dee intooda badan ummadahoodu taariikh iyo kayd bay lahaayeen meeluu qofku ka duulo nin yaroo 25 jira buu ahaa agoona markii uu yaraa adduunna aan haysanin 4 qof baa ugu horrayn rumeeyey xaaskiisi iyo saaxiibkiisi iyo 2 dhalinyaro ah haddana 1400 sano kadib waxaa rumaysan buuhi 1 bilyan iyo badh qof milyan iyo 500 oo kun oo qof milyan iyo 1500 oo milyan ayaa hadda rumaysan buuhi maalin walbana way sii kordhayaan maalin walba dadkaasi way siyaadayaan waxa ii muuqata buuhi oo aan isku qancinayaa dadka intaa leeg inaanu wada khiyaamayn karin waxa labaad oon isku qancinayaa been inaanay jirin 1400 sano soconaysa baasha beenta la yidhaahdaa waataynu inagu odhan jirnay lug kaliya ilaado lugtaasuunbaa la qabtaa waar been ma jirta buuhi 1400 sano shaqaynaysa marka inuu run sheegayo ayaa halkaa ka cad waxa kaloo uu tilmaamo kasii cajiib badnayd oo ta imika malaa laynagu tijaabinaya ah isagu dee micyaar buu leeyahay waxa wax ku qiyaasayo ah qofkani saamayntu dadkan ku leeyahay saamayntaasi cumqigay leedahay saamayntaasi kay leedahay kolba see usoo cusboonaanayso wuxuu kaga duwan yahay buuhi dadkaa kaloo dhan 1500 ee milyan ee rubeeyey waxaa ka mida malaayiin ka mid ah oo haddii magaciisa la taabto u tabxiyaynayo u dhimanaya marka nebiga la caayo waa midhka laynagu tijaabinayo haddii nebiga la caayo oo magaciisa la soo qaado xumaan lagu sheego malaayiin qof baa naftooda u huraya buuhi xageebay nin quroo yuhuudiya ama masiixii ma jira buuhi oo haddii nebigiisa la caayo naftiisa u huraya haddii ilaahiisa la caayona iskaba dah haddii ilaahiisa la caayo ama nebigiisa la caayo naftiisa u hurayaa ma jiro arrintaas waxay saamaynta intaa leeg ee soo cusboonaanaysa ee isdaba inuu nin weyn yahay waa rasuulda isagu ma odhanaya ma rumaysna laakiin inuu yahay acdam alcudamaa kuwa weynka ugu sii weyn inuu yahay baan ku qancay buuhi qur-aanka markuu ka hadlayna dee waa kii lahaa kutubtii la keenay oo dhami waa wada muxaraf marka laga reebo qur-aanka maxamed uu keenay isagu sidii lagu soo dejiyo weeyaan buuhi المهم مرخاتي waxay noogu filan ilaahay subxaanahu wa ta'ala inta markaan ka soo gudubbo qodobka shanaad aan u gudbi lahaa waxa weeye fadhigan oo kale ama kaalintan imika aynu qaadanayno xukunkeedu waa maxay in nabiga la difaaco diinta halkay kaga jirta ma wax la iska dayn karaa ma wax la iska fududaysan karaa mise waa arrin sharci ah waa waajib sharci waajib in saaran weeyay nabiga la difaac calayhi salaatu wasalaam daliiladan soo socda daraadeed ilaahay baa wuxuu yidhi ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allah id akhrajahu aladiina kafaruu thaniya اثnayn id humaa fi lgaar
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا عنان باك دعدي هدا أهيلي ويدان إلهي ذا أهيلي مرء النبي عليه الصلاة والسلام لبا يا هايين سقي أبو بكر وأبو بكر النبي قلنا حي أو النبي قلنا الدجيني أو لها لا تحزن إن الله معنا مالين تاس عدو ساوي رينا يبا إلهي أهيلي ووجوغ أبو إلهي سبحانه وتعالى marka waxa la inagu guubaabinayaa sidoo Ilaahay ugu hiiliyay inaynu inagu ugu hiilino arinta labaad jacaylka nabiga aynu jecelahay iimaankeenu ka mid yahay waa min al-iimaan sidaynu wada ogsoontiina xadiidkii Umar ibn Khattab iyo nusuus kalaba shayga kugu adag lama ilaawo waxaad aaminsan tahayna lagama aamuso waa xikmad hadduu shay kugu adag yahay markaad seexataad ka fikiraysa markaad socotaad ka fikiraysa marnaba maskaxdaada kama baxayo haddaad shay aaminsan tahayna kama aamustid waxaad ka aamusaysa maaha ood fudaydsanayso ama aad ihmaalinayso arrinta saddexaad nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu sheegay qofka difaaca qofka muslimka ah ee walaalkiiyo sharaftiisa إلهي با وجهي سكدفاع مالنت قيامها نارتا محاضر ملايين استقفك شرفت النبي محمد دفاعي عليه الصلاة والسلام صلوا على الرسول يدنا الدواد كران كريس شرفت النبي محمد قفك الدفاعية إلهي بك الدفاعية نارتا أرنت أفراد النبي محمد وحلق الشيخ عليه الصلاة والسلام لحقره لقصه الدولو وحوية منكر والدنبي وين دنبينا قفك أركب حول النبي عليه الصلاة والسلام ده درجات كلها قف بس يدو ديدي كره وديدو دولتها إسلام كيا مرحلو كارم بيلي علماء كارم بيلي أقويها كارم بيلي صحافة كارم بيلي هو تاومت إسلام كسكر عضي ألابتو ذا قال ذا نسكت دينو وهذا عجيبك أنا أركي أنت إنه دقيسنا إنه وحيابها السعودة magaalo Suudaan baa isbaarbaarayo waxay waayeen alaab Faransiisku uu leeyahay oo ay muqaatacayaan markaas waxay soo heleen macallin luqadda Faransiiska dhiga kiibay muqaatacayeen Faransiiska kale ay noogu dhaweeyeen adeer waxba ha noo dhigine orod naga tag macallinkii duub weyn oo meel iska fadhiya ayaa la soo sawiray waxay sheegaysaa taasi qof badarajada uu ku diiri karo munkarka waxay iyaduna aad u sii cajiib badan oo inaga qancinaysa arrintan xukunkeeda sharciga markay gaaladii reer Maka nabi Maxamed caayeen sallallahu alayhi wasallam rasuulku kama aamusin asxaabtiisii gabayaaga habuu yeeray waa afkudir waxa lagu dagaalamayaa waa cod iyo qowl iyo qoraal baa lagu dagaalamayaa Kacab bin Malik buu gabay ويرسلوجي معناها آدم ما ديران وحوي على عبد الله بن الرواحة السجنة آدم بوجين حسان بن ثابت بأويمد أمر موسى النبي أهجمهم أو هاجمهم وجبريل معك حديث الصحيحة ويرر كقاتل وأمر ما هي اختيار أمر وين ويرر أو أفك كويرر ملك جبريل نوك وهلينيا حديث الصحيح مسلم نوحة البامية عائشة يورينيس إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله ملك جبريل وكبربر تاجيه انت الدفاع عيسو إلهي رسول كيس إن قرأ إلهي وحين كبرينا مرة دي كلن كان النبي محمد كد دفاع عينه إنه ملائكتي سوى هلي نوغدغو وهل الله نوغدغو أرنت أسنا رنتي وامرا الحسوسين لها شنطة الريموت درادود waxa ay inoo sheegayaan inaynaan fudaysan karin arrintan oo kale ee la isu taago laga bareero habrashadana la iska daayo kolba wixii munaasib ah xigmad leh sharcigu ogol yahay inaynu arrintaa kaga jawaabno waxaan u soo gudbi lahaa inta hordhaca haddaan kaga imaado si kooban inaan u yara dul maro sifaadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaynu uga jeednaa si aynu nabiga qalbigeena ugu weynaado oo aynu u baranno
oo aynu u weynayno cid aanad aqoon ma weynayn karaysa ummadaha kale haddaynu ka sugayno inay weyneeyaan ixtiraamaan waa inaynu inagu weynaynaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waa inu qalbigeenna ku weynaadaa dhaqankeenna ku weynaadaa oo rasuulka sala allahu calayh wasalam xaqiisa aynu siino ugu horrayn dee kolle wakhtigu waa cidhidhi nasabka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu marayaa silsilad qaali ah oo ilaahay uu ilaaliyey sala allahu calayhi wasalam ilaahay baa ilaaliyey subxaanahu wa tacaala ilaa uu ka gaadhayo nebi ismaaciil sidaana waxaa tilmaamaya kolle xadiidka saxiixa ah axaadiidta saxiixa bay taas ku sugan tahay rasuulka markaynu usoo noqonno quruxdiisa waxa uu ahaa ajmalu nnaas dadkao dhanka ugu qurux badan bara bnu caazib waxau warinayaa xadiid saxiixaynka ku sugan nebigu waxau ahaa buuhi axsana annaasi wajhan wa axsanahu khuluqan laysa biطawiili ilbaa'in walaa bilqasiir ka ugu qurux badan buu nebigu ahaa ugu weji wanaagsan xagga muuqaalka dadka uguna akhlaaq fiican mid aad u dheer ma ahayn mid aad u gaabanna ma ahayn xataa nebiyullaahi yuusuf inuu ka qurux badnaa ayaa ay tilmaamayaan culimada in badan oo ka midihi oo markuu nebigu lahaa nebi yuusuf waxaa la siiyey quruxda barhkeed waa ciddii isaga ka soo hadhay rasuulka ka soo hadhay nebiga waxaa la siiyey quruxda dhammaanteed nebi yuusufna quruxda barhkeed rasuulku sala allahu calayhi wasalam jidhkiisu wuxuu ahaa mid daahira oo nadiifa oo udgoon dhididkiisu wuxuu ka mid ahaa meelaha laga soo saaro cadarka maalin maalmaha ka mida wuu seexday gurigii umu sulaym anas hooyadii uu dhididay nebigu calayhi salaatu wasalaam jaaniskii bay ka faa'iidaysatay quraarad yar bay soo qaadayoo waxay ku gororisay dhididkii nebiga wuu soo toosoo wuxuu uhi umu sulaymay maxaad samaynaysaa dee dhididkaagaanu ka faa'iidaysanaynaa bay tihi najcaluhu fii tiibina wa huwa min atyabi tiib waxaanu ku daraynaa cadarkayagaanu ku daraynaa cadar oo dhan ka u udgoon weeye sidaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ifka jooga ayuu sifaadkii ahlu jannaha u lahaa waxaa la kala boobi jiray oo la barakaysan jiray biyuhu ku weysiisanayo iyo candhuuftiisa iyo dhiiggiisa iyo dheecaankiisa iyo timihiisa iyo dharkiisa ninkaa qofka inuun intaa gacanta la gaadhaa qof ayaan lebu ahaa isaguna ummadda wuu la ogolaa maalintii xajatulwadaac ciiddii markuu timaha xiiray ummadda u qaybiya buuri markuu dhintay iyo markuu noolaa labadaba waa la barakaysanayay dharkiisa markii uu dhintay intoo la maroojiyo oo biyo la geliyo ayaa lagu dawayn jiray qofka waxaase xusid mudan arrintaa isaga ay u gaar tahay cid kale oo se la midihi ma jirto oo wadaadada intood mid soo qabsato odhan maysid dhididkaaga iyo dharkaaga ayaan barakaysanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka la eego xooggiisa wadaad miskiina ama daciifa ma ahayn shaqooyinku markay adkaadaan isagaa loogu yeedhi jiray aqwa annaas waxaynu garanaynaa markii godkii khandaqa la qodayey kudyadii iyo dhagaxii soo baxay asxaabtu markay mari waayeen isagaa loo dhiibay dubbaha wuu dul dhigayoo finiinkuu kaga dhigay aqwa annaas buu ahaa dadka u xoog badan nebigu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam marka la soconayo xooggiisa iyo haybaddiisaa ka muuqanayay jidhkiisa ilaa ay asxaabtu idhaahdeen waxaanu moodaynaa inuu meel ka daadegayo isagoo si dabiiciya u soconaya akhlaaqdiisa quruxda badan haddaynu u nimaadno arrimaha hore horta dee waa khilqioo waa haybad ilaahay uu siiyo wuxuu gartayoo lagagama dayan karo awsaaftiisa xagga abuurka ah ninbaa waxaa lay beri hore nebigu jeclaaday sala allahu calayh wasalam dhammaanteen waynu wada jecellahay laakiin qalad buu yaro fahmayoo tilmaamihii lagaga dayanayay kuwii aan lagaga dayanaynin ayaa iskaga darmay nin salxanya dhaadheer buu ahaa timihiisa intii soo dheerayd buu xiiray war maxaa dhacay markii leeso adigan xagga hore dhanxiir ku noqday wuxuu ihi kaana wajhu rasuulillaahi mustadiiran wejiga nebiga ayaa sida dayaxoo kale ahaayoo aniguna kii baan isu egaysiinayaa taasi sax maaha awsaaftiiyo tilmaamaha nebiga la ysaga egaysiinayo waa kuwa khuluqiga ah ee dhinaca akhlaaqda
nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa akhlaaqdiisa qadisay ammaanay wa innaka lacalaa khuluqin cadiim waan dadejinayaa wakhtigaa igu soo cidhiidhiya aad buu u xishood badnaa sida xadiidka bukhaari uu tilmaamayo xishoodku waa qaali dhallinyaro inanta gurigeeda ku jirteen kama bixin uu ka xishood badnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam mayadaa ku adkay wuxuu diidaya wejigiisa laga akhrisanayay dulqaadkiisa waxay nagaga filaa gaaladii oo dilayoo dhiiggu dareerayo ayuu lahaa allaahuma hdi qowmii fa innahum laa yaclamuun ilaahow tolkay ilaahow hanuuni waxba ma garanayaane markii uu ka gacan sarreeyey maka uu xoreeyeyna isagoo 10 kuna ciidana watana wuxuu yidhi idhabuu fa antum tulaqaa hankiisaa weynaa nebiga calayhi salaatu wasalaam juudkiisa iyo deeqdiisa ilaan rag waa dood iyo deeq iyo dagaaleh waxa uu ahaa midaan odhan jirinba siduu jaabir ibnu cabdillaahi xadiidka saxaaxa ku warinayo wixii la weydiiyo mayaba ma odhan jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam waa arrinaan ciday kale ka suurowdaa lama heli karayo haddaanu markaa hayninna ballan buu qaadayaa qofka wax cajiiba weeye geesinimadiisa asxaabtu markay ka warramayaan xadiidka saxiixa waxay leeyihiin markuu dagaalku adkaado sida taangiga isaga lagu gaban jiray kaaraha hadiya jeer ciidamadu dee taangiga u horreyseen isaga lagu gaban jiray sida madaxda qaarkeed muu odhan jirin bal hadda sii socdo iyo waxaan ku soo hadli doonaa rakaalka iyo raadiyahan ku soo hadlaya bal hadda hebelo hogaami muu odhan jirin isagaa shoolada ugu dhici jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib isagoo erayadaa tirinayu ayuu sii eryeeyey gaadiidkiisa maalintii xunayn zuhdigiisa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo tawaaduciisa wuxuu lahaa maa lii walidunyaa aniga iyo adduunyada maxaana kala galay waxaan ka dhiganahay sidii nin socdaal ku jira oo geed yaro hadhaystay taa meel buu iska dhigay wuxuu lahaa innamaa ana cabdullaahi wa rasuuluh aniga sidii ciise bnu maryam loogu xadgudbay ha igu xadgudbina anugu waxaan ahay cabdullaahi wa rasuuluh addoonkii ilaahay iyo rasuulkii ilaahay baan ahay wuxuu u diidan yahay nebigu inay qadarkiisa dhaafiyaan oo sifaadka ilaahay la siiya subxaanahu wa tacaala alla ka cabsigiisa waxaa ka turjumayey inuu habeenkii isu taagayo cibaado caguhu bararayeen oo marka la weydiiyana wuxuu odhanayay afalaa akuunu cabdan shakuuran miyaanan ahayn aanan noqonayn addoon ilaahay u mahadnaqa subxaanahu wa tacaala xusnu cishrati dhaqankiisa wanaagsan kuwa xaasaska iskaba daayo kuwa ummadda kale jariir ibnu cabdillaahi baa ka warramaya waxa uu leeyahy intii aan islaamay marna nebigu iskama kay xijaabina mar walba horaan ugu tegayey markaan ku soo baxana wuu ii dhaala caddayn jiray waxaa ka sii cajiib badan xokayntiisii anas ibnu maalik 10 sanaan u shaqeeyey buuhi marna imuu odhanin 2 su'aalood oo shaqaalaha lagu canaanto waxaa maxaad u samaysay iyo waxaa maxaad u samayn weyday waa labada arrimood ee ugu dhib badan shaqaalaha rajaaxatu caqlih wa wufuuruh caqligiisii weynaa wuxuu ahaa acdamu qaa'id fi taariikh hogaankii ugu weynaa ee soo mara adduunkan waxalla waxaad garanaysee kacdoon ay samaynayeen nimankii la odhan jiray munaafiqiintu wuu demin jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam caqligiisa iyo cilmigiisa iyo codkarnimadiisuu ku dawayn jiray waxaynu ogsoonnahay intaan laba soo dirin nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu u garqaadi jiray qabaa'ilka waxaasoo dhan marka aynu ka soo gudubno waxaa aad u weyn usii cajiib badnayd fasaaxadiisa nebiga calayhi salaatu wasalaam qolada balaaqada iyo had iyo jeer hadal cunka ah ee codkarka ah waxa ay gaadhsiiyeen heerka bani aadam la gaadhsiiye halka u sarraysa nusuus badan iyo axaadiid badan ayay tusaale usoo qaataana fasaaxadda nebiga ka turjumaya calayhi salaatu wasalaam bikayri takalluf isagoo aan isdhibayninba marka taasina runtii waxyaabaha ilaahay uu ku galladay bay ahayd oo cilmi iyo caqli iyo codkarnimo intaba ilaahay uu isugu daray si dadka u qanciyo una soo hanuuniyo wuxuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam khalqiga ilaahay oo dhan mid u fadli badan sida ay culimmadu intooda badani qabaan oo nusuustu way caddaynaysaa inuu bani aadamka u fadli badnaa ambiyada u fadli badnaa mar hadduu ambiyada u fadli badnaana waxaa ka dhalanaysa bay leeyihin inuu khalqiga ilaahay oo dhan u fadli badnaa hore markaynu sii soconno caalamkaynu geediga u nahay xaggiisa waa saaxibu alxawdi waashafaaca darka ayuu nagu sugayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam allah inoo aqbalo ana faradukum cala alxawd
waxaan idinku sugayaa buuhi goobta laga cabayo waxaana ka cabi doona ciddii aan sunnihiisa khilaafin ciddii sunnihiisa khilaaftay in laga joojin doono ayuu nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam sayidu nnaasi yowma alqiyaama khalqigu markay isu yimaadaan maalinta qiyaamaha isaga ayaa calanka mahadda u sida nebigu calayhi salaatu wasalaam awalu man yadkhulu ljanna waa cidda u horraysa jannada aftaxaysa ee gelaysa sidaasaa malagga khaasin la yidhaahdo marka uu nebigu garaaco albaabka wuxuu ihi adigaa la ifaray inaan kaa furo cid kaa horraysa oo aan ka furayaana ma jiro sida xadiidka saxiixa ku sugan ugu dambayntii walaalayaal waxaynu jeclaysanaynaa inaynu arki lahayn nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam siduu isaguba inoo jeclaaday inuu in arki lahaa asxaabtu la hadlo wuxuu yidhi waxaan jeclaaday inaan walaalaheen arki lahaa markaasaa waxay idhahaan alasnaa ikhwaanaka yaa rasuula allah miyaanaan walaalaha ahayn antum asxaabi idinku asxaabtaydii baa tiino waa ka derajo weyntiina waa ka horraysaa laakiin walaalaheen waxa weeye qaar iman doona oo iyagoo aanay arag rumayn doona marka sidaa uu araggeenna u jeclaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam innaguna waynu jeclaysanaynaa inaynu arki lahayn alle waxaynu weydiisanaynaa inaynu ku aragno jannada iyo xawdka halkaana uu inoogu horkaco dardaarankaygu walaalayaal waxa weeye dadkay dhegaysanaya kelmaddan kusoo gabagabaynayaa raasamaalkeenu waa diintaasaynu ku badbaadi karaynaa laynagu haysto aan haysanno cadowgeennana aynu ogaanno muqadasaadkeennana aynu ilaalinno aan baranana ilaahay aan baranno qur'aanka aan baranno rasuulka aan baranno raaciddana ku dadaalno rasuulka caynkaasi muxuu xaq u leeyahay maxaa inaga waajib inagu ah ee isagu uu xaq u leeyahay sheekha ugu xiga ayaan uga bixi doonaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad iyo aad buu mahadsan yahay fadiilatu sheekh maxamed sheekh cumar dirir konton daqiiqa inoo hadhay oon filaya labada sheekh inaan u kala qaybin doono waxaan runtii u mahad celinayaa cid kastaoo ka soo qayb gashay si gaara martishaata halkan fadhida ee runtii qiimaha badan leh siyaasiyiintu ku jiraan wasiiradu ku jiraan abwaanadu ku jiraan dhallinyaradii iyo aqoon-yahanadu ku jiraan dhammaantoodba runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa xirsi sheekh khaliil barkhad batuun cabdikariin axmed mooge cabdirasaaq rakuub maxamed siciid b k mise maxamed mubaarak imika weeye magaciisu yuusuf shaacir dhammaantood waa u mahad celinayaa sheekh almis xaaji yaxye ibraahim xuquuqda uu nebigu inagu leeyay sala allahu calayhi wasalam ayuu si kooban u dul istaagi doonaa falyatafadal mashkuura وبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشرف إيو قدرن إلهي سبحانه وتعالى إن سوكن كيني إن موجنو درين كينا ضمير كينا دين كينا أينو كقرب جوغنو نبي سبحانه صلى الله عليه وسلم dhalinyarada soo abaabushay inta timid culimada dhammaan waxaan leeyahay jazaakumullahu khayra waqtiga oo runtii aad cidhiidhi u ah waan dhaqsaan u guda geli doonaa haddii ilaahay idmo waxaana isku dayi doonaa waqtiga inaan beeqaamiyo oon weliba in hambeeyo haddii ilaahay insha allah tacaala xuquuqda nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam ummaddiisa uu ku leeyahay koog waxa ah horta nebiga in la rumeeyo sala allahu calayhi wasalam فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا رمي إلهي نبي سينا رمي صلى الله عليه وسلم نور كي أنصار دعينينا رمي يقول إلهي إن الليه حق كواد النبي محمد أمدي سو كل يهي واسي كامل إني الرميان طوبى أبو النبي صلى الله عليه وسلم لمن آمن بي ورآني مرة قف مرء أركي oo irumeeyay tuuba ayaa u sugan geed jannada ku yaala han noqdo ama ammaan la ammaanaya han noqdo wa tuuba liman aamana bi wa lam yarani sab'a mirar tuuba ba u sugnaaday qof irumeeyay isagoo oon arag
toddoba jeer saasuu nebigu u kala fadli yeelay sallallahu alayhi wasallam idan waajibka koowaadi waa nebiga rumayntiisa sallallahu alayhi wasallam oo ay ka ratibmayso marka nebiga la rumeeyo sallallahu alayhi wasallam raxmaankiina la rumeeyo nahjigiisii iyo sunnadiisii iyo shareecadiisii iyo qaabnoolaadkiisii iyo nidaamkiisii iyo maamulkiisii oo dhan inaan rumayno inuu yahay nidaamka ugu fiican qaabnooleedka ugu fiican manhajka ugu fiican inuu yahay intii aan ka fulin karayna ee taagteenu ay tahayna inaynu fulino waxa inaga dhimanna ilaahay inaynu weydiisano inuu dadaal la nimaadno inaynu dhamaystirno laba حق لبعض النبي محمد نقول لي هي وحبي صلى الله عليه وسلم إن جعلان النبي صلى الله عليه وسلم أحد كين إيمان كي سمت ما يستر ميو لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قفنا إيمان كي سكامل مرنا بنقول مايو إلا أن نقضب أن النبي صلى الله عليه وسلم qofku ka jecel yahay intii dhashay iyo intuu dhalay iyo dadka oo idil ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam marka mahabbada nabiga sallallahu alayhi wasallam mahabbada sunnadiisa nabiga sallallahu alayhi wasallam intaasoo idiliba waxay nagu tahay waajib saddex xuquuqda uu nabigu nagu leeyahay waxa kamida sallallahu alayhi wasallam nabigeena inaynu maqalno oo aynu ateecno sallallahu alayhi wasallam hebel waan jecelahay مقلنا مايو صح معها قفك وحي وجعلاضه وكمما ونكعل عليا سو هذا القائد كيسنا وجعل يهي إنه مقلو وهجان سنادنا وجعل يهي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول دولك إيمانك لجه ليو إلهنا أطيع سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم مركو إذن لنا ولا إذن لجوجينا أطيع markuu ilaahay ooftayna sunnadiisii iyo nahjigiisii ba idin dhexyaale ee ateeca oo u hogaansama oo maqlabu Allah subhanahu wa ta'ala kullu ummati yadkhuluna aljanna ummadayda oo idil jannada ayay gali doonaan illa man aba qofka diida mooyaane qiila waxa yiraahdeen waman ya'ba ya rasuulallah nabi maxamed oo yaa diidaya jannada inuu galo nabigu wuxuu ku soo koobay sallallahu alayhi wa sallam قال من أطاعني دخل الجنة قفك إمقلا أطيع إيقود ضيدا إيقود لكتا تصال إيا مودل نول المال بيت كيسا دخل الجنة كاسي جنة واقلها هيا ومن عصاني قفك إيقود عاصية إيقود جيستا سنة ضيدا قورسا منهج كيغا يريستا wax kale ku bedesha dibadda ka soo amaahda qaab nololeed iyo qawaaniin kale iga fadli yeela kuwaygana dhayalsada oo igu jeejeesa waman asani qofka caasi igu noqday faqad aba waadiida jannadii inuu galo nabiga sallallahu alayhi wasallam afar xuquuqda uu nabigu nagu leeyahay sallallahu alayhi wasallam ittibaacuhu rumaynay jeclaanay أطيعني محا كحيقة وإنين راعنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هديئات إلهي سبحانه وتعالى جعشهين أنيق إصور راعب النبي صلى الله عليه وسلم إلهي بايدين جعلان ودن بقينا دافي إلهينا وغفور الرحيم وي الله سبحانه وتعالى وحق نقول له يا نبي صلى الله عليه وسلم وجعلنا نبي ووينيننا مجيسي حرمت يشرف نقول له يا حدنا منهج كيسي ينولشيسي مرة عينه اسم قبنا يسوع لبضاس اسم قبنا يان مركا جعيل كينا يكل جعيلك يجرمتك يهيلك أين النبي أوهينا صلى الله عليه وسلم وحو حقيقه بيا قوما marka aynu nabigeena raacno sallallahu alayhi wa sallam hatta shanaadu nabigu nagu leeyahay waxa weey sallallahu alayhi wa sallam markaynu magaciisa maqalno ina nabiga ku sallina sallallahu alayhi wa sallam inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima inaynu ka yeelno arabkeena aynu ku qoyno kali markaynu nahay inaynu nabigeena sallallahu alayhi wa sallam wardi khaas ah maalin walba qof kasto inaga mid ihi inuu nabiga ku salliga nabiga sallallahu alayhi wa sallam arabkeena inaynu ku qoynayno dhaqan inaynu maxay tola ka dhigano
وحقه نقول له يا النبي صلى الله عليه وسلم قضبك وقدم بيا حقوق ذو نبي نقول له يا وحوي صلى الله عليه وسلم وجوب التحاكم إليه يينو حكم كدغنا بشر بيننا هو ينسقبن ما ملكيني قابنوليد كيني أما السياسة هالنقض أما التقالة هالنقض أما بلشة هالنقض أما منهج وحبر شديد هالنقض أما وضتسي الشورى هالنقض أما عذو إسكعابين هالنقض أما كبعين دقالة هالنقض أما مسلمين مدين تيدا لغا شقية هالنقض البحن من لأوغا هالنقض حضارية أقول لقمية هالنقض كالقعيل يدبع سنان دمرك يا هبلها الله يا هالنقض درس حرمينتي هالنقض وحالله لو وحي آدم وكفانا أو إذل إن لسمايا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يسقو قرآن كيسي وحي إلهي أصدري كده هنيا وح الله لو وحي النبي إنك تجي هبيرات مجرته إلهي تعالى علماء كن يا أفرطاب وقول يا جرجركا ولا شرحي ولا هفي ولا وعلي أحكام باكدلتي فقه باكدل سيرة كدلتي عقيدة كدل شيء فقه سياسة كدل شيء انت صيد الوا علومتي لقد نحل النبي صلى الله عليه وسلم ومده نجوه الرئيس سلف كيني صالح أهانا مركي أي كل رقمين أي قاتين النبي صلى الله عليه وسلم أي كدكتين مودل كقابنوليت كذا نولشود أي اسكودين إنه يدوالان ويهرم مرين البحن ماذا أوجد الإسلام كأي قطميين جامعها وجود أذوين وقفع وين عالم كمان تأدون كتاجن وجامعته كاسمي كالصوت بحي مساجد المسلمين توعي هايين جامعة الاستواء جامعة زيتونة تونس قيروان يدا الاستي أو أرض ذيبا أوجي أزهرنا أرض ذيبا أوجي جامعة وجود أذوين وجو عمرك وقفع ويني وجامعة تونس كتالة الزيتون إنن قبض مالقبين أحيد أيها وقف ذي أو مساجد كا أوكتي أو جامعة دا أوكتي إلى يومنا ما أنت وافريه وحروق الصعداء إن الله لا أنت أي أمضو مركان أمض الله يهينا ووذر ودمان وهجانكي وعلماء وتجارتي وشعراء يا أبوان ذي ودمركي ودلنيردي وعرورتي دمان انتا سو إذن إن الله لا انتا أي نبي ودوادان صلى الله عليه وسلم أي بقن كيسي يسنة ديسي يقابنولود كيسي اسكو ضيان إن يفوليان نور المعلومات كود أي كفوليان وانتا أي حضارة إسلامك يدين تا إسلامك أي هنقاد أي كر قعدو إن الله لا انتا اللي يفوقادنا وانتا بربرك يدي بدعا يو خلافك يو مرنك iyo gumaysiga la gumaysto ama han noqdo mid ciidan ama han noqdo mid aqli ah waa ka muslimiinta loo caga jugleynayo idan u dhawaanshaha ummadaas ay u dhawaato rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo kalgacaylka maanta aynu halka u fadhina ilaahay hay naga aqbale waxa la rabaa inaynu u bedelno inuu nabigeenu sallallahu alayhi wasallam xakamu noqdo dhexdeena ya ayyuhalladheena aamanu atii'u allaha وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا تتك إيمانك لغه ليو إلهي أطيع رسول كيسينا أطيع صلى الله عليه وسلم مدحذين مسلمين تإذن كم متك أهنا أطيع فإن تنازعتم في شيء haddaad wax ku murantaan oo arin dhexdiina muran yimaado maxay idin sameeynaysan farudduuhu ila allah ilaahay u celiya quraankiisii u celiya war rasuuli nabi maxamed u celiya sallallahu alayhi wasallam nabigu markuu noolaa nabiga loo celi sallallahu alayhi wasallam ilaahay markuu oofsadana sunnadiisii iyo aqwaashii uu ka tagay baa loo celin sida ayaa sameeya in kuntum tu'minuuna billahi wal yawmil aakhir إلهي يدرارت يوم القيامة هداد رميسنتهين إلهي يا النبي محمد حكم كنكته وحق إلهي إذن كل يهي وحق النبي محمد إذن كل يهي صلى الله عليه وسلم
ذلك هدان انتا كسو بحضان أمد النبي محمد ذلك خير إذي هل كاسو إذي كجرا وأحسن تأويلا وأحسن تفسيرا هل كاسو خير با إذي كجرا نبي نقات صلى الله عليه وسلم وكنقما آيات دو قدام بيسانا وحو إلهي سبحانه وتعالى كشيغيا حقوق ذو إنه قل لي النبي صلى الله عليه وسلم inaynu xakam ka dhigano oo aynu diinteena iyo shariicadeena iyo quraankeena sarraysiino oo aynu maxaakimteena dhigno oo aynu barlamaankeena dhigno oo aynu madaxtooyadeena dhigno oo aynu masaajidkeena dhigno oo aynu barlamaankeena dhigno meel walba oo danaheena dan guud iyo dan gaar taalaba kitaabka ilaahay iyo sunnada nabi maxamed inuu yaalo maalintaynu arrinka xaqiijino ayaynu xaqiijina hiilkii iyo gurmadkii nabi maxamed inagu lahaa sallallahu alayhi wasallam inta ugu dhawaanaynana waynu ku dadaalanaa geed dheer iyo geed gaabanba waynu u koraynaa in uu sareeyo nahjigi nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam quraanku inuu sareeyana geed gaaban iyo geed dheerba isagana waa u koraynaa oo maxaa ku jira hiilkii nabi maxamed loogu hiilinayay ayaa ku jira falaa wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما نبي محمد وربك قال كل أرته إيمان كله تام ما هو كامل معها إلا أي حكم كان واحد إحذو ذيالة أرن أو أذيك كوسو عليان كذبنا وحي أذيك حكمت أي اسكت ديبان iyaga oo laabtooda aan ku dareemaynin wax diidma ah iyo wax durugsinimo ah iyo wax yaraysi ah xukunkaaga laabtooda waxba aanay ku jirin wayusallimu taslima oo si wacan ay ilaahay isku dhiibaan subhanahu wa ta'ala lixda xaq ayuu inagu leeyahay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam kuwii guta allah inaga dhigo kuwa fahma allah inaga dhigo sunnada nabiga koruqaadkeeda kuwii u qaada allah inaga dhigo كالقعيل كالنبي قلابتين ألا هقليو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حق runta kama adkaystow ammaanada mallumiyow dadka uma abtiriyow ammaantaada nebiyow afku koobi maayo waxaad olol bakhtiisiyo waxaad eeda reebtiyo waxaad iin dawaysiyo waxaad eel bogsiisiyo waxaad aafadabisiyo ilinkaad banaysiyo dhaqankiyo asluubtiyo garaadkiyo aqoontiyo iimaanka sugan baa dadku kaaga aaye axdigaagu waa tiir ummadaadu mudan tahay erayadaasi waa ergadii furqaan abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi ilaahay caafimaad ha siiyo ilaahay caafimaad ha siiyo waxay noo hadhay 30 daqiiqo 32 daqiiqo 30 kamida sheekh mustafa ayaa insha Allah taala qaadan doona waxaan rabaa intaanan ku wareejin sheekha inaan si gaar ah ugu mahad celiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala kadib cid kasta oo ka qayb qaadatay oo u soo jeeday oo u dadaashay hawshan inay qabsoonto oo uu kow ka yahay cali cumar guuleed oo hoolkan markii aanu u nimiba yidhi hoolka arrinka khayrka waa lagu qabanaya ilaahay ha barakeeyo ilaahay ha barakeeyo isaga iyo ubadkiisa baa Allah ha barakeeyo waxaan kale u mahad celinaynaa shirkadaha waaweyn shirkadda Telesom shirkadda Som Cable oo Cabdisaaq Xasan Rakuubi nagala joogo oo internetka live-ka Facebook haddii aad ku jirtaan page-ka True Cable toos baa looga daawanayaa intiinan in ka badan baa daawanaysa idinkuna inaad sii share garaysaan waan runtii jeclaan lahaa iyagana waanu mahad celinayaa dhalinyarada Hir Media Al-Husayni waxa weeye salaam iyo dhammaan dhalinyarada runtii duubaysa iyagana waanu mahad celinayaa daqiiqadaas ka hadhay 5 iyo 10 waxaan rabaa Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed wasiirka inaan bartiisa ugu geeyo oo mahadnaqa ugu ka الحمد لله وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلهي بمحمد سبحانه وتعالى إلهي نقدر قد الإسلام ومؤمنين والنبي محمد هيلنا صلوات ربي وسلامه عليه وعن هل كان مر لبعض أنا قدر يا محدنقة تيلاك سكو
inuu mahadceliyo culimmadeena karam sharafta mudan ee galabta isku keenay hoolkan qiimaha badan ee uu inoogu deeqay walaalkeena cali cumar oo aan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ha ugu daro isagana iyagana waxaan leeyahay ilaahay cilmiina ha nagu anfaco ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalladiinaas qaar weelaya allah inaga dhigo ilaahay waxaynu ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala maalintan jimce inuu ilaahay naga aqbalo ducadeenna ilaahayna subxaanahu wa tacaala naga dhigo bahdi nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam een marnaba nebiga lagu dayaci karin agtiisa ilaahay waxaanu weydiisanaynaa inuu naga dhigo muslimiin xaqa oo ilaahay rumaysan subxaanahu wa tacaala kuwii nebi maxamed raacay ee jeclaaday ee amarkiisa qaatay allah naga dhigo jazaakum allahu khayra wasala allahu maca sayidina maxamed wasiirku aad iyo aad buu mahadsan yahay martida oo dhan isaga ayaa matalayay waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ku celinayaa in runtii aynu muujinno marka muxaadaradu inoo dhammaato sida ugu degan waxa weeyaan ee loo bixi karo loo baxo inaynu runtii nidaamka ilaalinno oo wixii laynoo sheegayay runtii aynu weelayno waa saacaddii ugu dambeysay maalinta jimce runtiina waa wakhtiga markaa ducada la aqbalo ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa camal aynu jannada ku gelayno ma ogine hiilka aynu nebiga u hiilin in ilaahay janna inagu siiyo hiilka aynu nebiga u hiilin in ilaahay jannada inagu siiyo dad fara badan baa waraaqa soo qorayay culimmada ma gaadhsiin karno anaa runtii matalaya ducooyinkii aad soo codsanayseen qof waliba muraadkiisa oon macsi lahayn allaha siiyo inta bugta ah ilaahay subxaana wa tacaala xanuunkaa ka dulqaado inteennii dhimatayna allah u naxariisto dhammaanteenna oo wada dhimanayna allah inoo wada naxariisto aynu si wada jira u soo dhaweyno sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun falyatafadal mashkuuran maajuura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ندوة قبل كان كله يحكو سابسي سين هاي إنه نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين أدون كان حريص ألا ون حريصا يدراد يدين لو صادري وحكى شيخ النبي عليه الصلاة والسلام وحلق الشيخ runtii waa dad aada u liita dadka wax ka sheegay taariikhda bini aadamka xadaaradaa soo maray tan baa ugu liidata axadu kutaabihim marloo la yidhaahdaa wuxuu leeyahay حضارتنا هي الأولى في التاريخ التي إذا طرح السؤال لها ما معنى الحياة أجابت لا أعرف بيدي أنا غير قلبي ده وحلي حضارة يضو تاريخ ده بني آدم كمرك الله يجيبه يدي وحضارة يوجه الرسالة ويديان نلاش وام حي معنى هذا ترى هذا قرن ما يبيدي ذاتك نلاش قرن واي دين النبي محمد قرن ما يه وحضارة ده وجود دل يدع يباب بدن الدنيا الصامرت دور بقول مليون بيقبان dilka daaya waa dadka xadaaradda gaadhay dadka intay dilaan inay haddana baktigooda lafaha bini aadamka intay soo qaataan sonkorta ku caddaystaan soo ma ogid in sonkorta si refiner looga dhigo loo caddeeyo casaanka looga saaro waxay isticmaali jireen bonjar wax la yidhaahdo lafa la tumay maraykankuna wuxuu isticmaalay red indianiskii uu xaaqay malaayiinta ahaa lafahooda sonkortu ku caddaysan jiray faransiiskuna milyan iyo badhkii algerianka uu xaaqay lafahoodu sonkortu ku caddaysan jiray xadaaradda nebi maxamed waxay ka sheegaysa waata intay bini aadamka laysay 20 kun oo madaxoo algeriana kurkii dadka inta la qaaday museumska Paris lagu daawado wali yaala maalin dhaweyd bay waxoogaa soo bixiyeen oo lagu soo celiyay Algeria maalin dhaweyd bay soo dhaweynaysay soo maydan ku arkay tiifiyada dadkoodii ay laayeen madaxyadoodii qayb ka mid oo dib loo soo siiyay xadaaradka khisadoodu halkaa gaadhsiisan tahay Faransiiska filosofiyadoodii ugu waaweyn ka mid ah Roger Garudi baa wuxuu leeyahay
xadaaradda ninka cadi intay gaajo ku disho sanad walba 60 milyan oo qof bay gaajo ku disaa buu leeyahay si uu ninka cadi unu noolaado xadaaradda caynkaasi hadday tidhaahdo nebi maxamed baan wax ka sheegaynaa runtii mala waxay ahayd inaan maanta iyaga wax ka sheegooda u banbaxo oo iska daayo inta kale waayo waddada aad u liita ayaa damacsan inay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wax ka sheegaan laakiin maadaama nadwada walaalaha qoondaynaya ay u qoondeeyeen inaan uu ka warramo naxariistii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebiyullaahi moxamed wakhti dunidu ay dayow ku jirto dayowga sooma taqaaniin qofka marka jihaadu ka luntee dhan uu u socdayo dhan uu ka socda u garan waayo uu dayoobay baa la yidhahdaa af soomaaliga wakhti ay xadaarada bini aadamku dayow ku jirto oo wax u saxani aanay jirin oo ay madow ku jirto hadday tahay aragtida iyo caqaa'idda hadday tahay nidaamka ijtimaaciga iyo calaaqaadka xidhiidhka bini aadamka ka dhexeeya hadday tahay nabadda iyo silmiga iyo waxay ku salaysan yihiin dhan kastoo laga eegaba wakhti ay madow dunidu tahay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi maxamed soo diray waxaana ilaahay cinwaan uga dhigay risaaladiisii markaa wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin kumanan soo dirin baa ilaahay leeya inaad tahay mooyaane naxariis caalamkaanu u naxariisanayno isaguna nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaami الدارمي iyo bayhaqiba fi shucab aliimaan ay warinayaan sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamaya wuxuu leeyahay ayuha annaas inamaa ana raxmatun muhdaah wardadow war naxariista laydiin soo hadiyeeyaanahay buu nebigu leeyahay hadiyad ilaahay idiin soo diray oo naxariisa baan ahay buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam galadii intay dhibtay ayay saxaabadu yidhaahdeen yaa rasuula allahi udcu cala almushrikiin ilaahay rasuulkiisa iyo nimankan gaaleed inaga habaan markaasuu nebigu wuxuu saxaabadii ku yidhi innii lam ubcath lacaana wa inamaa bucistu raxma layma soo saarin buu nebigu yidhi mid dadka lacnada inaan noqdo ee waxaa lay soo bixiyey buu nebigu leeyay inaan dadka naxariisu noqdo saxiix muslim baa soo warinaya idan nebigu calayhi salaatu wasalaam isaguna wuxuu isku tilmaamay markuu iska hadlayay inuu raxma muhdaa yahay waxa loo soo dirayna inay naxariis tahay ilaahayna wuxuu siiqada qasriga sheegaysa ee nafyi iyo ihbaat ku soo aroortay waxa uu ku tilmaamayaa nebi maxamed waxa loo soo diray inay tahay naxariisu ibnu cabbaas turjumaan alqur'aan baa wuxuu ku tilmaamayaa raxma buu dadkoo dhan u yahay oo inta rumaysay dee rumayntiisay ku liibaanayaan intii xataa la dagaalamaysay aan rumaynini waxay ka nabadgelayaan buu leeyahay halaaggii iyo qaraqii iyo istiisaalkii ummadaha nebigooda beeniye lagu samayn jiray imaamu tabarina ra'yigaasuu rajaxaya waxaa xoojin kara ra'yiga baanu leenahay xadiidku nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ee muslim ku yaalla ina allaha idaa araada raxmata ummatin min cibaadihi qabada nabiyaha qablaha فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فهلكها وهو ينظر فأقر عينيه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره والنبي يقول عليه الصلاة والسلام إلهي أمتها الدور ربينون حريسته يقول ولدنا قنبان النبي قودوا كيريودا دبا تنوحوا النقضاه sahan ama farad cid u sii horaysa ayuu u noqdaa oo ummadda khayr xagga alle uga sii raadisa haddii ummad ilaahay uu balaayo la doonana iyadoo joogta markay nebigeeda beeniso ayaa iyaga la halaagaa ummadda iyadoo nebigu jooga la halaagaa waa dad inkaari ku dhacday buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ayuha alaxiba waxaan leenahay dunidu si kastoo loo eegaba iyadoo baadiyaysan fitanka iyo bidca iyo khuraafaadka iyo dulmiga iyo basharka la addoonsanayo iyo dadka la gumaysanayo ay dunida maanshaysay oo meel kasta ka taagan tahay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi maxamed soo saaray
ambiyada kale ilaahay wuxuu ku tilmaamayay wa ataanii raxmatan min cindah laakiin nabiyullaahi moxamed waxaa lagu tilmaamay isagu naxariistaba ina isaga ta ilaahay soo diray ilaahayna wuxuu qur-aanka ku leeyahay qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin yahdi bihi allahu man itabaca ridwaanahu subula asalaam ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم إلهي حقي نور بين كيم نور كوحي مفسرين كفسران هل كان النبي جاي عليه الصلاة والسلام نور هي كتاب مبينة لبدا سيدين يمبا ألا ليه سبحانه وتعالى حنو يمدتك إنه ظلماتك مقدقة كساره وبني آدم كمان كيسو ينو عافي ماضو وورور كلابي دقو والروح ديسو حسشو ووحو انو ليه وقرتو ودوني دا وحو وشوغو وفهمو تاسان حريس وين نبي الله محمد أن حريس تاسوها إلهي ليه هي وإن تطيعوه تهتدوا هدا مقش هدا الدعدان واهنون إستان haddaba waxaan leenahay khalqigoo dhan buu nebigu u ahaa calayhi salaatu wasalaam naxariis ugu horrayn ummaddiisu u ahaa oo ummaddii nebi maxamed loo soo diray muuminiinta noqoto ilaahay wuxuu leeyahy laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim waxaa idin yimi baa ilaahay leeyihi rasuul idinka tirsan وعزيز عليه ما عنتم أي كو أدكت هاي دبتين حريص ودين هي درادي حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إلهي وحكو سفيري مركا رؤوف رحيم نوي هاي دادك مؤمنين تها دبكستوسو قردانا إني دبسو وحكو غفلا حديث كي صحيح مسلم ككوية لنبي عليه الصلاة والسلام انتو هبينكي كعو اسقوا اخرنا يا ايات القران الهي لا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ايات النبي عيسى ولها الى ودات كون عذابتنا وضمهاغي هذا الذنب دافتنا اديك اود بدن وحكمات بدن اي النبي وحب لا بهبينكي اسقوا دعينا يوم مد دعينا اللهم امتي 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 الى هذا او يو نحرس ونحرسنا يومدي سينا العذاب أيها بين دن أويجي أولي إله ومضيدي يبتنا جبريل بقى الله صادر سبحانه وتعالى يسوق أوك أيها وحلا جبريل واحد ويديسا وما يبكيك حكا هنا نبي عليه الصلاة والسلام وشاغي مركا يبتنا إلهي سبحانه وتعالى جبريل وحو صفره وكيري إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك ومضى ذلك كذا وكرر لقليل نبا إله إليه سبحانه وتعالى كون حمين من نبا إله إليه سبحانه وتعالى أيها الأحبة حديث حوت المام يسيدوا مدى قلنا حريسني يسيدوا ورور كوقبي عائشة هي حديث قالوا حسن والشيخ الألباني كنت المام أيوه أيها وحيت إليه الرسول كيسيوي يدعيه مركز النبي يقول اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر ما أسرت وما أعلنت إله عائشة الدم بجادي هوري يكادي الدم برداف وحي قرصتي وحي كوريا شيبة إله وداف مركز آدو قصة شيء عاش إلهي مدح فورا رسيسي وقص ليسي مركز النبي وكيري أي يسرك الدعاء دعاء إذا تنميه كفرح جلسي وما لي لا يسرني دعاءك ما ساني يفرح قال بيتري وحنا بيقولوا والله انها للدعاء لامتي في كل صلاه الهي ما كن دارتي النبي وحلي عليه الصلاه والسلام الله كن دارتي والدعاء ان امديده ودعيه صلاه كستا صلاه كستا النبي محمد ينسو دعاء يجري والدعاء صلاه والبا امديده ودعيه كواسي واسيدو ولدق بيي وحكمده امديسي haddii wakhtigu ogolaadana wax kale aynu tilmaamay haddaynu eegno cadowgiisa siduu ula dhaqmayey maanta waxyaabaha tashwiiha islaamka ku sameeyeen nooc min terroriska ka loogu soo bandhigay ama rag ugu soo gabadeen aan idhaahdo waxaa ka mid ah xadiis si qaldan ragga badhay u adeegsadeen nabigu calayhi salaatu wasalaam
xadiidkaa saxay baa waxaa jira maalin buu kacbada yimi markaasuu wareegay isagoo tawaafayo sanaadiiddii quraysheedna ay meesha fadhido ayuu soo wareegay markaasay caayeen oo ku jeesjeeseen oo maageen wuu dhaafay wareeggii labaad buu haddana soo maray sidii si leeg bay u caayeen oo maageen markaasuu dhaafay wareeggii saddexaad buu haddana soo maray sidiioo kale ay u caayeen oo haddana u maageen intuu ku jeestay buu markaa nebigu wuxuu yidhi taclamuuna yaa macshara quraysh ama waladii bacatanii bilxaqi laqad ji'tukum bidabx ma ogtiin buu yidhi qurayshay ilaahay baan ku dhaartee allihii xaqaygu soo saaraan ku dhaartee gowrac baan idinla imi buu yidhi waa nimankaa caayayey ayuu nebigu ugu jawaabay dadka badh baa waxay moodeen inay tahay qofka isqabataanba madaxa inta laga gooyo in laabta loo saaro dabeetana caalamka islaameed oo dhan la saaro la yidhaahdo waa terer group ummaddan muslimiinta ahay su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan haddii ilaahayba uu nebiga ku tilmaamay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin markay ku jeesjeesayana uu dawaafayo weedhaa ku yidhiye markuu gacan roonaaday siduu ula dhaqma makay ka saareen markaasay tumeen markaasuu ka tegey markaasuu tegey daa'if sida wada taqaaniin markaasay carruurta iyo dadka xunxun ku direen markaasuu ka soo noqday isagoo dhiiggu da'ayo cadhada haysay iyo siduu u warwarsanaa maan garanin buu yidhi nebigu ilaa batnu lakhra meel la yidhaahdo markaan marayaan miiraaba gartay meesha aan marayo ilaahay baa malag u soo diray malagga buuraha loo soo diro waxaa la yidhi labada qoladan sida kuu gelaysa reer maka haddaad rabto akhshabeenka labada buurooda hareeraha ka xigaa dusha laga saaraya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaan ka rajaynayaa dhabarkooda kuwa ilaahay caabudaan ilaahay u shiriik yeelin in alla ka soo saaro naxariisuu u naxariisanayay dadka 21 sannadood bay la dagaalamayeen 21 sannadood wakhti ku dhadhow sanadkii 8aad ee hijriyada buu furtay nebigu calayhi salaatu wasalaam 2 sano sulxiya unbaa ku dhex jira 21 sano iyagoo la dagaalamayay ayuu ka xoog batay oo magaaladoodii qabsaday markuu soo galay muu odhan madaxa ka wada guroo laabta u saaree war maxaa filanaysaan buu ku yidhi maxaa iga filaysaan waa la isu bihinbihiyey dabeetana wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam idhabuu fa antum tulaqaa aw laa tatriba calaykum alyowm sida riwaayadda xasankii tilmaamayso canaani maanta korkiina maaha iska taga waa idin fasaxaya طبعا waa jirtaa qof iyo 2 iyo 3 la dilay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam amray in la dilo sanaadiidooda ka mid aha sanaadiiddaa waaweyn mooyaane ciduu nebigu dilo kale ma jirto oo amray in la dilo laakiin dadka badh bay isku dabarrogtay diintu oo dad badan laayay laakiin waxaynu u soconaa nebigu calayhi salaatu wasalaam gaal iyo muslimba naxariistaasi kula dhaqma oo noloshiisu naxariistaasay dhammaanteed ahayd oo markuu xoog bato kaa wax cafiya naxariisanayu ahaa ilaahayna wuxuu ina leeyahy diinta baa waxaan u soo